so maanta waxaan bilaabaynaa calaamadaha warning signs. Calaamadaha waxaa la isku dhahaa calaamadaha digniinta. Calaamadahan waa saddex gees ama saddex xagal bay u samaysan yihiin. Waxaa loo sheegay dalawarada inay loo sheegay calaamadahan saddex qayb ay ku sheegayaan. Warning signs la isku dhahaa marka waxay ku sheegayaan warning oo digniin ah, waxay ku sheegayaan khatar iyo waxay ku sheegayaan ayadana kale sidoo kale macluumaad bay ku sheegayaan iyo taxaddar. Marka haddaad aragtay calaamadahan fadlan iska ilaali waxay ku sheegayaan. waxaan ka bilaabaynaa number 1. calaamadan koowaad waxaa la dhahaa afka qaar lagu dhahaa bend left ahead. Bend left ahead ama sharp bend to the left ahead noo dhigi kartaan. Calaamadda waxay ku sheegaysaa wadada goolad khatar ah inay ka horeyso oo dhanka bidix u leexanayso. Goolad khatar oo dhanka bidix u leexanayso inay ka horeyso ay ku sheegaysaa. Soo dalawaradu waxaa la wargelinayaa inaysan wadadaas aynan xoog ku galin oo inay xabaaraha soo dhiman ay tartiib u galaan. calaamadan waxaa waaye cagsigeedii waa sharp bend to the right ahead ama bend right ahead. macnaheedu waxaa waaye goolad khatar ah oo dhanka midig u leexanaysa ayaa ka horeyso. goolad khatar ah oo dhanka midig u qaloocanaysa ama u leexanayso ayaa ka horeysa. soo waxaa lagu leeyahay waa inaad adeecdaa calaamadda waxay ku sheegayso oo aad xabaaraha gaariga soo yareysaa. calaamadan 3 waxaa waaye successive bend to the left ahead bal calaamadan successive bend to the left ahead ama double bend to the left ahead noo dhigi kartaan. macnaheedu calaamadan waxaa waaye waa wada zigzag ah oo qolqolooc badan marna midig baadaysa marna bidixda oo toos ay ku dhamaanaysaa. inta badan waxaa laga helaa dhulka baadiyaha ama wadooyinkan oo buundooyinka ay u badan yihiin ama maxaa la jiray haaraha ayaa laga helaa calaamadaas. soo waxaa lagu leeyahay wadadaas ayada ah waa inaad xawaaraha aad dhintaa gaariga oodan sameynin wax la dhaho overtaking oo baastaan ah. waa inaad sameynin wax la dhahayo speed. soo wadadan way kula leexanaysaa iska ilaali. tan waa cagsigeedii waa successive bend to the right ahead ama double bend to the right ahead. waan isgoys iskana ilaali baabuurta wadada ku jirtay. calaamadan haddaan u imaano waxaa waaye slippery road ahead. slippery road surface ahead. slippery road ahead waxaa waaye wadda silitoonaysa ka horeysa. wadadan inta badan waxaa laga helaa dhulka markuu qayo ama roob u doo ama baraf oo kale ayaa lala kulmaa. gaariga haddii kale wuu kula taadahay markan oo kale waxaa la rabaa inaad gaariga xawaarihiisa aad dhinto oo si tartiib aad u socoto. looma baahna inaad xawaaro badan ama awood badan ku socoto. iska ilaali. calaamadan waxay ku sheegaysaa danger of falling rocks ahead. danger of falling rocks waxaa waaye buur dhagaxyo badan khatar wada ka soo daadanaya ka horeysa. buurtan waxa uu leeyahay xilli ay u dhacdaa. xilli waxa la kulmi kartaa dabaylo iyo duufaan ay socdaan. dabaylo iyo duufaan ay socdaan awgeed dhagaxyadii xagga min Allah ka soo daadanayaan. markaas hadda la kulanta xaaladan oo kale waa halis. baabuurkaaga waxa laga yaabaa inay dhagaxyada ku dilaan ama haddii kale waxaad u imaan kartaa jawigo degan dhagaxyada waa in iska leexsaa ama gaariga kala leexsaa. way ka horeysaa iska ilaali. waa digniin. calaamadani sidoo kale waa digniin waxay ku sheegaysaa ayadana loose surface road ahead bal laha. loose surface road waaye wada jay ah ama dhagaxyo miran ama qurux miran ama wada raaf ah weey. soo haddaad aragtid dhagaxyada gaarigu fadhinaya waxa leeyahay haddaad xoog ku marto sidaas u fadhinaya dadkii ama baabuurtii wadada taalay buu saameyn u keeni karaa oo ku dhici kara dhagaxyadaas adigana halis geli karto. soo waxa uu leeyahay markaan meesha marayso kale waa inaad xawaaraha gaariga dhinta oodan orod badan ama socod badan oo dheer ah ku wadin. iska ilaali ka horeysa. tani waxaa weeyaan pedestrian crossing ahead. calaamadan waxay ku sheegaysaa wadada ka horeysa inay dadka ka gooyaan ama ay maraan dad bulshaaley ah. waxaa lagu leeyahay dadka ha waxyeeleen oo ka istaag ayaga xaq u leh laakiin adiga waxaa la rabaa inaad dadka mudnaanta asiiso. dadka waad aragtay sidoo kale wadada aad bay u isticmaalaan maxaa yeelay dadka si khaldan bay u isticmaalaan wadada oo way iska soo galaan orod bay ku galaan qaar. soo dadka inta badan aqoon uma laha wadooyinka. soo isticmaalkooda adiga gaari haddaa wato waa inaad cilmi u leedahay wadada ayada ah inay dad maraan. waxaa lagu leeyahay marka ka taxadir oo iska ilaali. calaamadani waxaa waaye children crossing ahead. calaamadan children crossing ahead waxaa waaye school baa ka horeeya ama arday meel ay maraan. ardayda inta badan wax cilmi ah ama aqoon uma laha wadada. ma isdhahayaan gaari waa meesha maro ama uu kugu dhici karaa ama waa dhiman oo bil aadan oo kale ma ah. ardayda isku layna iyagana waxaa la rabaa inaad xushmad ama respectiga asiiso ood ka istaagto oo wadada aad u ogolaato inay gooyaan haddii aad la kulanto weey. calaamadaas calaamadahan haddaad aragtid waxaa lagu talagalay saacadiiba 20 inaad ku socotaan ama 30 lama ogola xawaaro badan. calaamadan oo imaano cyclist crossing ahead. wadadani waxaa maraan baaskiileyda. baaskiilka wadadan wuu maraa marka xilli baaskiilka iska ilaali. wadadaas waxaa laga yaabaa inaad kulanto baaskiilaha inta badan iska ilaaliya markay wadada ay kula isticmaalayaan oo kale. waxaa laga yaabaa inay ayagoo dhinac ka soo galay ay kula leexdaan dabadeedna aad gaariga ku dhufato. aad fiilo gaar waa in ugu yeelataa baaskiilaha iyo mootooyinka wixii la mid ah. calaamadaas ayay ku sheegaysaa. calaamadani waxay ku sheegaysaa cattle crossing ahead ama domestic animal ahead. macnaheedu waxaa waaye calaamadan waxaa laga hadlayaa waa meel ay xoolaha la dhaqda ay maraan sida lo'da. lo' kale ama soo gali saddexda caanamaha ayaa soo gali karto sida lo'da ariga gila. soo waxa laga yaabaa neefkaas oo wadada goynaya inaad la kulanto
adoo speed ku socota ama xawaaro badan inaad ku dhacdo laga yaabaa marka waxa uu leeyahay taxadar gooni ah waa inaad lahaataa ama fiiro goori ah oo iska ilaalisaa xayawaanka wadada gooni hadda la kulanto waa inaad geeska martaa ama aad ka istaagtaa ilaa uu ka goynayo wadada isaga kale xaq ayaa uu leeyahay calaamadan hadda uu imaan waxa wild animal crossing ahead wild animal waxa waaye duurjoogta tii hore waxay ahayd xayawaanka aan dhaqna taasna waa duurjoogta iska ilaali uu leeyahay meeshaas waxa mara sida biciidka sagaarada geeriga iyo waxaas lamida ayaa mara oo madwaadiyaha laga helaa ugaadha isku leeynin baa lagu leeyahay adiga ugaadha iska ilaali baashaas orod ku socota laga yaabaa wadada marka marayso oo kale waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa iska ilaalisaa tani waxa weey road work ahead ama main at work ahead bal dhaha macnaheedu waxa ka horeysa wada shaqo ka socoto sida construction ama dhismo haddii noqoto laami la dhisayo oo jabay ama haddii noqoto wada la dhisayo calaamada haddii aragtid ka tagtoona waa lagu leeyahay dadkii wadada waxaynayay ama hagaajinaya laga yaabaa inaad ku dhufato waxaa la rabaa wadada dhinaca shaqada ay ka socoto mooyee dhinaca kale inaad marto marna waxaa la kulmi kartaa wadadii oo bidixda ka socoto shaqo waa inaad midigta u beedhaa waxaa la kulmi kartaa wadadii oo midigta shaqo ka socoto waa inaad bidix u beedhaa soo iska ilaali way ka horeysaa dadkii ha garaafeenin baa lagu leeyahay ama waxyeeleenin calaamadani waxa weeye traffic light ahead traffic light waxa weeye samafarayaasha ka horeeya samafaraha waa inaad taqaano wuxuu ku sheegayo lightka guduudka ah waxa weeyaan istaag jaalaha waa get ready oo diyaar garow ah cagaarkana waa soco soo iska ilaali uu leeyahay lightka casaanka ah mar walba waa la istaaga waa wadada waa lagu jiraa weey iska ilaali jaalaha waxa weeyaan isdiyaari maxaa laga wadaa haddii aad maxaa la dhihi jiray qof u sheekeynayso sheekada jooji haddii aad telefoon ku hadlayso telefoonka jooji haddii maxaa la dhihi jiray aad wax cabayso ama wax cunayso jooji marka waxa leeyahay wadada u diyaar garow inaad gasho greenkana waa soco oo waad geli kartaa weey wadada calaamadan waxay ku sheegaysaa greenka wadada gal ayaa uu leeyahay tani haddaan u imaan waxa low flying aircraft ahead airport baa ka horeeya diyaaradaha ay ka kacaan airport kaliya lagama hadlayo guuxa diyaaradda ama dhawaaqa ayaa halis ah marka waxa leeyahay meeshaas waa inaad ogtahay darawrada la wargelinayaa inaysan ku argagixin ama ayna ku sasin guuxa diyaaradda dhawaaqeeda ayaa wax lagu argagaxaa baasha marka waxa leeyahay meeshaas waxay ku sheegaysaa inay tahay goob diyaarad ay ka kacdo ama garoon diyaarad tani waxa waa hazard ahead ama danger ahead waa khatar walba lagu sheegaya waa general tan waa wax guud ka hadlaysa haday noqoto meel gaari ku halaabay ama ku shil ku galay haday noqoto god haday noqoto meel waxyaalaha qarxaan ay ka buuxaan haday noqoto wada aan la gali karin oo xiran soo calaamada meelahaas ayaa la dhigaa haddaad aragto calaamadaas iska ilaali khatar baa ka horeysa ama kugu soo fujigsan luli ama kugu soo aadan calaamada haddaan umeena two way traffic ahead wada laba dhinac loo socda ka horeysa wadadana waxa weeye two way waxa laga wadaa wado laba dhinac loo socdo oo isdhaaf loo socdo soo sharci wadan walba sharci uu leeyahay anaga sharciga aan joogno waxa wadankan joogno waa bidixdaas aan ku soconaynaa gaariga dhinaca kale imaanaya waa bidix soo adiga leen khaldan ha isku gelin baa leeyahay ka horeysa wadadii waxa ka dhamaataa loo leeyahay one way ahead ama halka dhinac loo socday marka waxa lagu sheegayaa inaad la kulmayso ama aad geli rabto wada isdhaaf loo socdo calaamadan waxa la dhahaa crossroads ahead crossroads waxa waaye wado isgoys ah taasoo la siinayo ayaa ka horeysa wado isgoys oo la siinayo ayaa ka horeysa waxa leeyahay marka iska ilaali soo wadadan waxa way baabuurta ayaa saas iskugu dhaafayso marka xaqqa waxa iskale baabuurka midigta ka imaanay mar walba hadaad galayso wadadan waa inaad iska fiirisaa fiil gaar u yeerta baabuurta wadada ku socotay way ka leeyihiin la soco calaamadan haddaan u imaano calaamadan waxa weeyaan projection stop or give way ahead bal calaamadan ama projection with two main from both sides ahead no dhigi kartaan macnaha waxa weeyaan wadadan waa wado weyn oo isgoys ah oo laba wado oo yar oo soo dhacayaan midig iyo bidix xaqqa waxa iskale wadada weyn baa lagu leeyahay wadadan haddaad dhinaca midigta ka imaanaysay saaxiib waa laga leeyahay waa inaad sugtaa baabuurta wadada socotay wadadan kale haddaad ka soo galaysana sidoo kale waa inaad sugtaa baabuurta dhanka ka imaanaysay waa inaad iska ilaalisaa haddaad wadada weyn ahdaysatana lama baana wax istaag ah maxaa yeelay adiga xaq u leh mar walbana waa idiin sheegay wado weyn markaad soo galaysaan oo wado yar aad ka imaanayso xaqa waxaa kaale ama mudnaanta wadooyinka waaweyn baa kaale inta badan xushmada waxaa iskale wadada weyn ee wadada yarta iskama laha tani waxa weeyaan rejection with road entering from the right ahead ama rejection with one main from the right ahead macnaha waxa weeye wado weyn oo isgoys ah ayaa wada kale ka soo galaysa midigta xaqa waxa iskale wadada weyn marka baabuurta dhankan ka soo galaysa midig oo wadada yarta ka soo baxay waa inay sugan baabuurta wadada weyn socoto ayaa lagu sheegayaa calaamadan haddaan u imaano waxaa la dhahaa rejection with acceleration lane from the right ahead rejection with acceleration lane from the right ahead waxa laga wadaa wado weyn oo isgoys ah ayaa wada kale ku soo biiraysa oo dhanka bidig kaga soo miraysa wadadan fiiqan ee dhankan ka soo galayso ayaa wadadan waa one way ah oo hal dhinac u socoto weey marka wadadan yarta markay soo galayso waa inay baabuurta dhanka bidix ka imaanaysa inay iska ilaaliyaan weey marka isku geli kartid waa inaad give way sameeysaa ama wax la dhahayo qadarin ama mudnaansiin maxaa yeelay wadada weyn baa ka adiga xaqa okay tani haddaan u imaano waxa weeye roundabout ahead
roundabout waxa way dawaaradaha ama kala wareega ka horeeya kala wareega sharciga ayuu leeyahay roundabout sidiisa wuxuu leeyahay rules 5 rules of roundabout shanta sharci roundabout ku talo waxa way no stopping lama istaago roundabout ka sidiisa waa qalad number 2 no change lane wada lagu bedelan karo roundabout waa qalad number 3 no parking lama dhigan karo roundabout waa qalad number 4 no waiting qof lagu sugi karo roundabout waa qalad number 5 no overtaking baastaan lagu ma sameyn karo roundabout waa qalad so rules of the roundabout kuwaas ah roundabout sharciyadiisa waa inta soo iska ilaaliya calaamadani waxa weeyaan railway crossing with a barrier ahead ama waxa dhigi kartaan control railway crossing ahead macnaheedu waxa weeye wada tareen oo maamul ayaa ka horeysa wadadani waa safe wad mari kartaa laakiin waa inaad iska fiirisaa wadada tareenka markii biraha laga xidho oo kale waa inaad iska istaagtaa so waa meel aad mari karto laakiin maamul leh calaamadan waxa weeye uncontrolled railway crossing ahead ama waxa dhigi kartaan railway crossing without a barrier ahead macnaheedu waxa weeye wada tareen taasoona wax maamul lahayn markaad soo gaadhaan jidadka tareenka ama isgoysyada tareenaha waa inaad istaagtaan isgoyskaas oo iska fiirisaan ama iska eegtaan midigii bidix waxay ka imaanayay tareenka midigii bidix midku ka imaado iska fiiriya waa inaad dhagta raaricisa oo iska dhageysataa codka tareenka oo bixinayo codkiisana dhageysto weey saas ayada oo la macaamilaysaan wadadan ayada haddaad iska goyso tareenka sidiisa ma istaago waa non stop uu kugu dhici karaa marka waxaa leeyahay iska ilaali calaamada ugu dambaysa windy sock ahead baa la dhahaa bahashani waxay laga helaa meelaha gooraha diyaaradaha ay ka kacaan ama airportyada waxay maamulaysaa ama ay raac ku leedahay diyaaradaha soo taas ayay ku sheegaysaa dabaysha diyaaradda ayay la socotaa soo halkaas ayaan ku joojinaynaa insha Allah